السلام عليكم أحبابي ميل walba aad joogtaan waa idin salaamay kusoo dhawaada channelkayga TikTok sajiya fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar channelka haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore inala joogtayna muuqaalka inoo like karay biidbillahi kariim muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay faa'iidooyinka uu leeyahay isticmaalka ama cunista rumaanka inta aynu gudagelin muuqaalkeena fadlan subscribe inoo saar like inoo dhiirigeli waad ku maasan tahay haddaba cunista rumaanka waxa uu leeyahay saddex faa'iido waxayna ay kala yihiin sida tan kow waxa uu kordhiyaa tayada shahwada sidoo kale minada iyo in uu ka ilaaliyo bararka xaniinta kaadihaysta cabitaanka rumaanku waxa uu 10 goor saameyntiisu ay ka xoog badan tahay isticmaalka miraha kale sida hal koob oo casiir ah maalintii waxa ay wanaajinayaan shahwada ama minada waxa uuna yareeyaa dhibaatada tabardarida dareenka ragga iyo ka ilaalinta bararka xaniinyaha kaadihaysta labo waxa uu xoojiyaa rumaanka difaaca jirka hal ka mid ah rumaanku ay siinayaan 16% ka mid ah baahidaada maalin waliba ee vitamin C-ga aad uga baahan tahay sidaas daraadeed waxaa lagu talinayaa in si joogto ah loo isticmaalo si uu u xoojiyo minadaada iyo difaaca jirkaaga gaar ahaan xilliyada qabowga ah sida looga hortago cudurrada hargabka iyo fayruusyada saddex waxa uu wanaajiyaa niyadda haddii aad rabto in aad wanaajiso niyadaada rumaanku waxa uu hodan ku yahay ama soo saarta hormoonada sida heerkulka jirka ilaa iyo baahida hunguriga marka si joogto ah loo isticmaalo waxa uu ku siinayaa dareen ah nasasho maskaxeed wanaagsanaan jir ahaaneed waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani fadlan hadduu ku cajiib geliyo muuqaalkani sii share garee si ay ugu faa'iidaystaan qaar ka mid ah asxaabtaada